boqolaal muwaadiniin Soomaali ah oo ku xayirnaa dalkaas Iiraan ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalkooda hooyo ee Soomaaliya. qaar ka mid ah muwaadiniintaas maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde waxa ay u mahadceliyeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay sheegeen in gacan weyn ay ka geysatay sideyntooda. waxaana sidoo kale ay u mahadceliyeen safiirka Soomaaliya ee dalka Iiraan oo ay sheegeen inuu halkaasi ku ilaalinayay inta ay ku jireen in ka badan muddo hal sano oo xabsi ah oo ay ku xirnaayeen gudaha dalkaasi Iiraan. Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waa islaam dhamaan intii meesha joogto anigoo faraxsan oo wadankii ku soo laabtay sida u jeedaanba qayb liwaax waxa ka qaadatay dawladda ma sha Allah ugu mahadcelinaya meeshan iyo qaasatan ambassadorkeena awliye khayr Allah siiyo intaas oo bilaad asana la joogay intaas oo bilaad asana naga warhaay intaas oo bilaad asana meesha nagu haay Iiraan waxaan ka soo baxnay xabsi sanad iyo 3 bilood aan ku xirneen ma sha Allah hadana waxaan joognaa wadankeena kulay lama soo koobi karo farxadeena waa dareemi kartiin qof oo wadan shisheeye oo ku xirnaa hadana waxaan ku faraxsanahay in wadankayga imaado. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ومنى عبد أحمد وحن كمدة هاي محابيستي لغا سوداية إيران وأمباستور أولي سوداية وكفر حسنا ما أنت ومالين إيقو قالي ودن كيغا أنتي بوغو صونو قضي الحمد لله الشكر دولة دي الصومالي وأمهد علنا قارهان مدحوينها الصومالية مدحوين فرماجو يو انت دولة كتيرسن آيو امتا دمان أمد الصوماليات قولي قبنمو. مقعي وديق محمد علي hal san iyo 3 bilood baan ku xirnaa dalka Iiraan 6 bilood iyo 8 maalmoodna waxaan corona awgiis aan waxay yirnaa dalka Iiraan maanta waxaan aad ugu faraxsanahay dareenkayga mid la soo koobi kara maaha inaan dalkayga hooyo ku soo noqdo waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii hore ee xilka laga qaaday Xasan Cali Khayre oo ii soo diray ambassador Maxamed Xuseen Awliyo dadweyne oo in badan naguna xanibnaa dalka Iiraan maanta dareenkii mid la soo koobi kara ma aha in badan 6 bilood iyo 8 maalmood inta falaad aan ka hakanay dib uga dhacnay mid la soo koobi kara ma aysan ahayn laakiin maanta dareenkii mid la soo koobi kara ma aad baan ugu faraxsanahay imaanti kan imaanay dalkeena hooyo sababaha ugu baxnay wali dalkii waa taagan tahay arrimihii waxaan rajayn doonaa insha Allah inay xukuumadeena isbedel weyn noo muujiso si fiican noo soo dhaweyso insha Allah aydan waxa u nahay maxaa la jiray maanta mar haddii ay xukuumadeena tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan leeyahay كل عام وأنتم بخير عيد وناس إن شاء الله. دولة فدرالك ee Soomaaliya ayaa horay muwaadiniin ku kala xirnaa dalalka caalamka waxay dib ugu soo celisay Soomaaliya iyadoona dadaal xoogan ay ku bixinayso muwaadiniinta kale ee ku xayiran dalalka kale ee caalamka. Umar Yusuf Maxamed, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho.